wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan qorsheynta guud iyo maareynta qarashaadka dawliga. Aqoon kororsigan ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid ah howlwadeennada dowladda hoose ee degmada Kismaayo, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah agaasimo waaxyada waaxaha dowladda hoose ee degmada Kismaayo, waxaana si rasmi ah u daafuray agaasimaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland Maxamed Cabdu Axmed, agaasimaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland oo tababarka si rasmi ah u daafuray ayaa kula dardaarmay howlwadeennada dowladda hoose inay tababarka si wanaagsan uga faa'iideystaan intuu socdo. maanta waxaa inoo furmay tababar ku saabsan xagga qorsheynta iyadoo laga fiirinayo sharciga dowladaha hoose. tababarkan wuxuu la xiriiraa tababaradii hore degmada shaqaalaheeda iyo howlwadeennadeeda la siinayay Kismaayo soo bilowday bishii November ee sanadkii hore oo ku taxalluqo programkan dowlad kaab ay fulinayaan hay'adaha UNICEF iyo UNDP iyo UN Habitat. kan hadda maanta aan u madalsanahay maanta noo furmay waa UNDP ka mid ah dalada dowlad kaab. trainedan waa trainadii hore oo hordhaca November-kii soo bilowday degmada shaqaalaheeda iyo howlwadeennadeeda kor lagu qaadayay kanna kuwaas ku taxalluqa oo ka mid yahay. marka runtii shaqaaluhu waxaan filayaa in sideedii hore ay wax iska bedeleen xagga mataqaanaaye qaybta maaliyadda, qaybta qorsheynta waxyaha dhammaantood. marka wasaaraddu waxay mudnaanta ku siinaysaa in shaqaalaha degmada Kismaayo ay noqdaan shaqaale xirfadooda sarreyso, runtii wax badanna ay iska bedelaan sanadihii hore ay wax badan ka bedelmaan. marka waan sii wadi doonaa tababaro degmada la siinayo maalmaha soo socda. tanna hadda waa maanta noo furmay waa 5 cisho. 5 cisho markay dhamaadaanna waxaan geli doonaa insha Allah tababaro kale degmada la siinayo. waxaana jiri doona insha Allah raxmaan tababaro kale iyagana caalami oo xirfadooda kor loogu qaadi doono dalka dibadiisa iyo gudihiisa bay aadi doonaan shaqaalaha Kismaayo.